الرحمن الرحيم كلنا wanaagsan daawadayaal waa barnaamij xiiso leh oo run iyo raadra ah isugu jira tan soo socota waa sheeko xiiso badan oo halkudhigeedu yahay gaadhigii la isku qabtay inuu nool yahay in kale gaadhigaasi waa 1930kii waa degmo qadiim ah oo kamid ah magaalooyinka geeyiga haatan maamul goboleedka Puntland loo yaqaano waxaa soo galay goor barqa baabuur waa kii ugu horeeyay ee dadka deegaankaasi abidkood ay arkaan malaha horena uma ay maqalo sheekaba iyo fikir kama ay haysan si kasta ha ahaatee wuxuu guuxo danan oo rooraba markii uu istaagay gaadhigii ay dadkii ku soo shireen oo hareerihiisa isa soo tubeen asrar ayaa la isdhaafsaday qaar ayaa yidhaahdaa waxani waa nool yahay kuwana waxay yidhaahdaan maya ma noola garta ayaa la istiraarsiiyey oo geed hoostii ayaa la isla tegey waxay noqotay markaa inay nin garsooro ah iska dhex doortaan oo iyaga markaa u garqaado oo ku kala saaraha kooxdooda quman bal in waxani nool yahay iyo in kale dabeeto ninkii la xooshay ee la saanyaday baa yidhi ku horeeya qolada ku doodaysa inuu waxaan nool yahay dabeetana gaarigaasi waxa la filayaa inuu ahaa nooc loo jiray ama loo yaqaan fiisikiska sanadkuna waa 1922kii qoladii markaasi ku doodaysay inuu gaarigu nool yahay ayaa waxa ay ku tiraabeen waxani uu ordayay waxa nool ayaana orda waxani uu istaagay waxa nool ayaana istaaga waxani uu kaajay iyagoo tilmaamaya markaa biyo ka da'aya taangiga gaadhiga waxa nool ayaana kaaja bay yiraahdeen waxay kaloo ku doodeen waxani inuu dhuusay isla markaana waxa nool oo kaliya ay dhuusaan taasoo ay la jeedeen hoonkii baabuurka sidoo kale inuu waxan indhaleeyahay oo ina soo eegayo ay doodoodii ku darsadeen markii qodobada ay taxeen ayaa ninkii garsooraha ahaa isagoo aan sugin kuwii kale ee aaminsanaa ama ku doodayay in waxaan aanu noolayn isagoo aan suginba ayuu malaha intuu keligii ku qancay qodobadii ay tirsheen nolosha tilmaamayeen soo taxanay ee ka mid ahayd orodka iyo istaagidda kaadida iyo dhuusida iyo indhalahaanta ayuu ninkii wuxuu xukumay inay sax tahay oo ay gartii heleen qoladii ku doodaysay inuu gaadhigu nool yahay hase ilaawin daawadow hadda in ilaahay uu qur-aanka inoogu sheegay dhammaan waxa dhulka yaalla inay nool yihiin ha yeeshee aynaan fahmayn noloshooda oo weliba uu ilaah xusay inay ilaahay u tasbiixsanayaan oo ilaah baa xumo ka fog intaa ay 24 saacadood leeyihiin amarkiisana ay ku socdaan cadaabtiisana weliba ay ka cabsadaan oo ay ka magan galaan laakiin ragga maalintaa gaadhigu inuu nool yahay iyo in kale isku hayay iyo dadka badida bulshada maanta dhaqan ee muslimka xitaa ku absiisataa had iyo jeer ma xusuustaan mana xusaan nolosha makhluuqaadka kale ama waxyaabaha loo yaqaano jamaadaadka ee ay dhagxaantu ka mid tahay iyo qalabka oo kale oo si rabbi og yahay uu nool una tasbiixsada haddaba sheekada aan filayo inay xiisaha lahayd waa mid dhab ah oo ka dhacday dhulkeennan Puntland waxaana la isku qabtay gaadhigaasi inuu nool yahay in kale gartiina waxaa la siiyey qoladii sidaan horeba u soo sheegnay ku doodaysay inuu gaadhigu nool yahay tanina waa laascaanood waa sheeko kale waa xilligii gumaysiga waa nin hilible ah oo sayladda aan idhaahdo kawaanka isagu hilib ku gada nin u shaqeeya oo cuntada u kariya DC-ga wixii la odhan jiray ama district commissioner oo ah guddoomiyihii degmada ayaa ninka cuntada u kariya uu ka qaadi jiray qaraar walba hilib joogto ah oo malaha qadada dhisaga faranjiga ah uu ugu samayn jiray afarfarood la isma afgaran waayo inkastoo Soomaalidu ay ku maamahdo haddana ninkii Soomaaliyeed ee turjubaanka ahaa ayaa odaygii kawaanleyda ahaa ee hilibka doora looga qaaday guddoonshaha Ingiriis ka warwareejiyey inuu xogtiisa u turjumo ama ujeedada uu xafiiska u yimaado uu sheego daraarsi dambe ayuu fikiray ninkaasoo la odhan jiray jaamac yuusuf axmed oo lix jalaale caan ku ahaa
waana qiyaastii bartamihii afartanaadkii waxa uu goostay inuu subax ku kallaho dhiisiga ingiriiska waa guddoonshihii degmada ah laftiisa oo aan cidina u dhaxayn mar haddii turjubaankii uu dhagar iyo warwareejin ama dibindaabyo iyo lugooyo ka tirsaday iyo inuu garbixi waayey oo hadalkiisii ninka gaadhsiin waayey lahajaaladuna iyo dhaqaaluhu waa qayb muhiima oo nolosha ku tirsan tahayoo jaamacna lahajaalaale ayaa horeba loogu naanaysi jiray markaasi ayuu sugay intii uu ka soo baxayey ninkii dhiisiga ahaa markuu soo baxay ayuu yidhi good morning sir af ingiriisi jacbura iyo carabi iyo soomaali ayuu isugu daray guddoomiyihii ingiriis baa u soo hogtay oo u soo holladay ninkii hiliblaha ahaa kadibna wuxuu yidhi one look one leg two body big one all of my money putting in the table waxa uu tirinayaa hilibkii laga qaaday wuxuu yidhi one look oo ula jeedo hal luga iyo one leg waa wasada hilibka lega aynu naqaano two body big one iyo laba badiyood oo mid ay weyn tahay ayaa laga qaaday ku leeyahay buu all of my money lacagtaydii oo dhan burin in the table wada aragtaa inay cinda oo kale carabi ay tahay oo xagga miiska dhig lacagtii ayuu leeyahay markaasuu yidhi kamaan la xajaalo afarfarood la isma afgaran waaye ninkii inuu wax tirsanayo oo isaga qaanu sheeganayo ayuu fahmay dabeetana lacagna uu ka hadlayo iyo weliba hilbaha qaarkood oo malaha uu fahmay si kastaba ha ahaatee turjubaankii ayaa loo yeedhay waxaana khasab ku noqotay inuu qanciyo oo ka dhaadheeyo waxa uu ninkan kawaanleyda ee lahajaalaale sheeganayo markii dhiisaygii lacagtii loo sheegayna sidii ayuu ku bixiyey haddii rabbi raalli ka noqdo haddaba daawadayaal sheekooyin badan oo labadan hadda aynu xusnayba ay xaqiiqooyin dhacay oo dhulkeennaa yihiin ayaynu jecelahay inaanu maaweelo iyo raadraac taariikheed dirkaba u soo qaadano waxaana kulankan inoo xiga haddii rabbi raalli ka noqdo aan isleenahay aad daawadayaashiisa usoo bandhigteen gartii bilaabatay aadkii ee ceerigaabo caanka ka ahayd ee lagu magacaabi jiray boqolka dameerood iyo beertii daaqay oo dowladdii soomaaliyeed ay dhacday iyadoo weli aan la xukumin gartaasina ay taagan tahay ilaa iyo haatan iyo weliba sheeko kaloo xiisa badan oo reer ceerigaabo doc ka khusaysa qudhooda oo la yidhaahdo iyadana jigjiga meydkeeda ha sidato bal haddaa inagoo caawa ku soo qaadnay barnaamijkeennan gaadhigu inuu nool yahay iyo in kale laysku qabtay iyo weliba tii kale ahayd afarfarood laysma afgaran waayo intaa aynu ku soo koobno